Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alayga qaaliga meel kasta adduunka ka joogtiin. Kusoo dhawaada mar kale video cusub. Insha Allah tacaala maanta waxaan rabaa inaan idinla share gareeyo cashiradeeni iyo barnaamijyadeeni aan ka hadli jirnay oo ku saabsan hooyada, dhallaanka, uurka, walaac iyo waxyaabahaas tan insha Allah tacaala. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan ka soo hadalnay uurki, waxaan ka soo hadalnay walaac, waxaan ka soo hadalnay doo Ilaahay ku roon yahay foosh, waxaan ka soo hadalnay isbitaalka xilliga la aadaay. Hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah tacaala hooyada guriga markay imaado oo isbitaalka ka soo baxdo maalmaha u horeeyo. runtii qurbaha markaa imaan waxyaabo badan aan baranay anaga oo waxaan baranay wadankeena waxyaabo aan ku arki jirnay ka baranay waayo wadankeena waxaan lahayn dhaqan aad u cajiib leh si hadii loo fiiriyo dhaqankeena Soomaaliya horta aad u fiican yahay laakiin waxyaabo badan oo xunaa jira anaga oo keenaya inaan xooga ka dambeeyno adduunka waxyaabaha cajiibka ee hadda oo la yaabo waxa Soomaaliya markii la joogo hooyada markay dhasho guriga imaado isbitaalka laga soo wado 40 maalin guriga lagu xiraa hooyada qoraxna arki meesho iftiinna arki meesha ku jirtaa marka waxaas caafimaad darro waaye inkastoo laga soo mooday oo hadda qof dhinto oo u dhinto oo rafaad aan la arkayn laakiin haddana Ilaahay u saqirday ummadiisa hadeesan waxa ay ka warhayeen caafimaadkii waxyaabahaas marka hooyadii guriga lagu xiray fiiriya guriga lagu xiray baaqul mashaariga iyo baaqul caanishaha loo keenaa hooyadii way isku dhaxdhacaysaa way cayilaysaa caloosh way ka weynahaysaa markaas Soomaaliya marka tagto gabar 20 jir hadii cunug dhasho islaan weyn u malaysaa caafimaad ma ah mashaari baaqul mashaari caanishaha garaafoon lagu soo caafimaad ma walaalahayga qaaliga waxyaabaha marka meeshaan anaga aan ku aragnay oo maxay heeday la fiican waxa waaye hooyada markay isbitaalka soo baxdo horta gurigaaga ay imaadid waa xanuunsan tahay nabara ku yaalo naasa cunug nuujinaysa cunuga ana siinaysa waa caanihi wali si fiican ma soo bixin xaaladdu way kugu cusub tahay waxyaabo badan asugu ka darsoomay dhafar wuu ku hayay 3 maalin amba 2 maalin isbuuc wuxuu noqoto waa foolanaysa marka waxyaabo badan asugu ka tagay walaalahey qaaliga marka waxaa horta koow aan rabaa inaan abaayinku u sheego 40 maalin sheegaysa 2 maalin guri isku soo xirin hadaad caafimaad qabtid waxa sameynaya meesha nabarkaaga wuu ku bugsanayaa wax normal waxaan dad marka walaalahey qaaliga waxa sameynaysaa hooyo banaanka u bax oo soo qaado cunugaaga kurida meesha hawo fiican soo qaado caafimaadna waa ka helaysaa cunugiisa fiican kaaga hurdaya aad hawadiya soo qaadan guriga ma isku jacburinaysid jactidinaysid waxa kale waan ku bogsanaysaa waayo dhaqdhaqaaq inaad samaysid meesha way kaaga bogso ogtaa inaad jiiftid le maantaran كو waxyaabaha isticmaalaysa waxa waa saabuun iyo shaambaha u isticmaalay nabarka kugu yaal biyo qandac leh markaad ku sameyn gacantaada ka ilaal waayo gacantaada bacteria badan ay leedahay jeermis ay leedahay jeermiskaas ka galay infection kugu dhici karo biyo qandac isticmaal gees daarta isaga fadhiiso waxyaabahaas waa waxay aad ku gooni ah waay waxaana kaaga diga abaayo tarmuus caani iyo shaah meesha soo dhigan caani iyo shaah caafimaad la darana waay waxay ku gooni ku keenaa ma jirto waxa kaaga fiican oo kaaga caafimaad badan caanana ka helaysaa waxa waay biyo badan cabtid biyo cada cabaysa xataa cabitaanada gasac ku jiro la qasaay caafimaad daro waa baa sokor iyo waxa ka qaaday caloosh way kaaga sii weynahaysaa caanana ma la horta cabitaanka la qaso waxyaabaha caanaha waxa hadaarta shiida cabitaan qudaar shiida limon beelmo iyo broccoli maxay ahayd broccoli maan yurgubar farol in Soomaali lagu dhaamalay strawberry waxyaabahaas aad u fiican dhiigaaga kor u soo celinaya timirta kale iyada malahan cayil malaha iska cunso waxa timirka timir soo kacay hilibka kale ma sha Allah hilibka isku cun hilibka codka laakiin iska ilaali saliidiisa badan ma fiican asagna cayil ku keena waayo xilliga ugu cayilka abaay waxa waaye jaaniska ugu weyntaa waa inaa cayishid waayo calooshaada dhan way furfuran tahay waa iska ilaalinaysaa waxyaabaha cayil ku keena baayo marka waxa sameynaysaa qudaarta badso waxa badsanaysaa waxyaabaha caafimaadka ku laha badsanaysaa insha Allah tacaala cunugaaga marka u horeyso naaska waxa laga yaabaa markay siinaysan dib kugu noqoto aad horta waxa sameynay markasto nafisna ku helaysaa cunuga nafis ku helaya marka naas siinayso cunugaaga cabitaan aba waxyaabaha meesha kaaga muuqdo shiido soo dhiga meesha garaafoonka soo dhiga meesha waxa aloolna ma ka weynayaysa caana fiican way kugu yeelaysaa adina caafimaad energy ka helaysaa marka walaalay maxaan rabaa marka inaan wax yar ka sheego insha Allah video-gan oo dheeraado ma rabo marka naas nuujintii iyo waa adiga caafimaadkaaga waa intaas waxa fitamiina qaadanaysa waa muhiim inaad fitamiina qaadato cuntooyinka broccoli waxa barsanaysaa faroolaha timirta waxyaabaha dhiig kor kugu soo celinaya badanaysa waa dhiiga ka baxay of course
cuntooyinka noocan walaal biliis cun abaay malaayga noocan oo kale doorada noocaas oo kale broccoliga qudaarta badso qudaarta cagaarka badso timirta loos wax kasta maasha Allah tabarakallah waxaa iska ilaaliya baasta iyo bariis iyo bur iyo saliid iyo sokor waxyaalahaas caafimaad darada iska ilaalinaysa iska ilaali waayo ku fududa inaa cayishid anaga waxa ciilana dhamaanteen Soomaalida badankeedna saas waaye caafimaadna malahan waa huufeysa tabar malihid waayo maanta cunuga ku habeen ku soo kacay cunto waxa u baahan tahay adiga naftaada dhiigana ku soo celinay energy-gan ku soo celinay hadhoona aad adkeysmi ka qaadaysid waayo shaqo badan ku sugayso cunug markaa dhashay dhafar zaid ku galay baay habeen ku dalaan ku dhacaysa naaskin waa laga jiqaya adiga dhanba waxa naqaysa qof tabar lahayn aan naqanaysa marka isku day ina caawinaad weydiisato qofka kuugu dhow amba walaal amba hooyo amba odaygaaga ha noqoto waxa sameynaysa cunug intuu hurdaayo waxa sameynaysa maalinta qof guriga ku jooga leedahay cunuga marka walaalay insha Allah ta'ala waxa sameynaysa waxaan ka hadalnaa guriga marka imaadid waxaan ka hadalnaa adiga caafimaadkaaga cunadaadii naas nuujinta qaabka naas u nuujinaysid waxyaabahaas ka hadalnaa insha Allah ta'ala waxaan ka soo hadli doonaa cunuga markuu dhasho sida loogu qubeeyo waxyaabaha oo aad sameynaysid oo cunuga aad u sameynaysid iyo qaar kale oo badan ka soo hadalnaa insha Allah ta'ala cuntooyinkan kullee waad aragteen marka insha Allah waxaan rabaa video-gan aad ku dheereey maraba insha Allah video kale ka soo sameeyna part 2 imaanayso insha Allah ta'ala walaalahayga qaaliga sii share garay video soo u gaar abaayooyin kale oo cusub oo ugu aan aqoon waxyaabaha dhan insha Allah ta'ala adigna waad ku maadsantahay saad u fiirsanaysid waqtigaaga qaaliga walaal macaan thank you so much hadaad nala joogtana waa kaas waa nala joogta hadaan ugu cusubtaan subscribe-ka iyo like-ta iyo commentiga waxaan naga iloobin insha Allah ta'ala waa mar kale iyo video cusub iyo barnaamijkeeni hooyada iyo dhalaanka iyo